السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وإسلام ميلو بجوكتان maanta waxaan ku hadlanaa qaybaha nambarada types of numbers marka nambarada aan isticmaalo ee nolosha isticmaalo waxay leeyihiin qaybo kala duwan magacyana kala leeyihiin marka qaybahaas ayaan maanta ka hadlanaa waxa ku soo dhawaada dhammaantiin marka haddaan aan ka soo qaybta koowaad ee kamid ah qaybaha nambarada waxaa la yiraahdo whole numbers whole numbersku waxa weeye wax kale maaha waa nambarada aan wax ku tirsano oo lagu daray zero yani count numbers ko zero lagu daray nambarada wax ku tirsano oo zero lagu daray taa waxay ka bilaabmaysaa zero from zero waa 0 1 2 3 4 5 saasay u soconaysaa and so on marka nambaradaas aan wax ku tirsano oo lagu daray zero waxa loo yaqaan whole numbers qaybta labaad haddaan u nimaadno ee ka mid ah qaybaha nambarada waxaa jira natural numbers natural numbers waxa weeye marka qaar waxa la count numbers nambarada wax ku tirsano weeye waa count numbers nambarada wax lagu tirsado marka nambarada wax lagu tirsado waxa ka bilaabmaan zero qof marka wax tirinayo waxa ka bilaabmaan waxa leeyahay number 1 qof marka waxay kala duwan yihiin whole numberska iyo natural numbersku whole numbers waxa ka bilaabmaan zero count numberskuna ama natural numberskuna waxa ka bilaabmaan hal bay ka bilaabmaan marka qof marka wax tirinayo koob ka bilaabaa koob labo kadibna kor baa u socotaa marka waxa weeye natural numbers or count numbers waxa ka bilaabmaan iyagu koob bay ka bilaabmaan waxa weeye koob bay ka bilaabmaan iyagu koob labo saddex afar shan saasana u soconayaan marka nambaradaas aan wax ku tirsano waxa loo yaqaanaa natural numbers haddii aan u nimaadno qaybta saddexaad ee ka mid ah qaybaha nambarada types of numbers waxaa jira integrous numbers waxa la yidhahdo integrous numbers waxa weeye wax kale maaha waa whole numberska oo lagu daray negativekii nambarada negative side negative numberska lagu daray marka tusaale ahaan oo kale maalinta subaxda soo kacday qorraxdu waxa weeye 6 centigrade habeenkiina qabow noqoto tusaale ahaan oo kale minus bay noqoto minus 2 bay noqoto marka sababtaas waxaa la dhahaa integrous numbers marka iyagu waxay ka bilaabmayaan negative cycle tusaale ahaan negative numberka doona noqon karaa haddii hadduu kale dhibic marka u taagana nambarada negativeka wixii meesha ka bilaaban karto ma ogin tusaale ahaan oo kale minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 saasana u soconaysaa marka nambaradaas minus ka kooban iyo positiveka iyo zeroga waxaa la isku yaqaanaa integrous numbers haddaan u nimaadno qaybta afraad waxaa jira waxa la yidhahdo odd numbers marka odd numbers wax kale maaha odd numbers waxa weeye waa nambarada aan u qaybsamin hal si sax uguma qaybsamaan oo waxay soo gelaya decimal pointiyaa soo gelaya marka nambaradaas odd numbers waxay ka bilaabanaya hal saddex shan toddoba sagaal 11 nambaradaas 13 taasana u soconaya nambaradaas waxa weeye marka nambaradaas si sax ugu qaybsamin nambar laba oo waxa soo gelaya point baa soo gelaya decimals baa soo gelaya haddaan ka hadalo qaybta shanaad waxaa jira even numbers marka even numbersku waxa weeye waa nambarada labo ugu qaybsan si sax ah number labo ugu qaybsamaan si sax exactly ugu qaybsamaan decimal point ma soo galo waxa ka mid ah number labo 4 6 8 10 12 saas u soconayaan marka nambaradaasi haddii laba loo qaybiyo si sax ugu qaybsamaan oo point ma soo gelayo sidaa awgeed nambaradaas waxaa loo yaqaanaa even numbers waxaa jira qayb lixaad oo la yiraahdo prime numbers marka prime numbers waxa weeye waa nambarada u qaybsama kaliya hal iyo naftooda marka hal factor bay leeyihiin factorka ay leeyihiin waxa weeye they have only
number 1 and itself number factor kooda waxa weeye kaliya number 1 iyo naftooda kaliya way qabsan numberka lama qabsamaan marka hal naftiisa kaliya uu qabsama hal number hal factor kala ma sida awgeed number hal kuma jiro prime numbers sababtoo ah isagu wuxuu leeyahay sida kaliya soo qabsan factor kala male marka shuruudda waxay tahay inay leeyihiin factor ah number 1 and itself numberku inuu factorka number hal leeyahay iyo naftiisa marka numberadaas waxay ka bilaabayaan number 2 number hal uu qabsan naftiisa waa qabsanaa marka numberadaas waxa weeye 2 3 5 7 11 13 and so on numberadaas waxa loo yaqaanaa prime numbers waxay qabsamaan number 1 iyo naftooda haddaan u nimaadno qaybta 7aad waxaa jira square numbers square numbers wax kale ma aha waa lambarada soo magacu sheegay lambarada square gray oo laba jeer isku dhuftay soo ahaan hal lagu dhuftay waa hal laba lagu dhuftay waa 4 saddex lagu dhuftay waa 9 4 lagu dhuftay 16 shan lagu dhuftay waa 25 lagu dhuftay 36 asana soo soconaysa 7 lagu dhuftay laba marba la isku dhufto lambarada la square gray waxaa la dhahaa square numbers waxaa jira cubic numbers laakiin kuwaasi muhiim ma aha dheero cubic waa kuwa saddex jibaaray oo saddex jeer la isku dhufto waxa la yiraahdaa cubic numbers haddana nimaadno qaybta 8aad waxaa jira waxa la yiraahdo rational numbers rational numbersku wax kale ma aha waa lambarada loo qori karo as a fraction in number fraction loo qori karo waxa weeye rational number marka waxaa muhiim oo kale qofku inuu ogaado denominatorka micnaheedu hooseeyo ma noqon karo 0 numberada marka soo noqdo oo pointiga 0.333 numberadaasna waxaa la dhahaa saas loo soo noqdana waa rational numbers marka numberada loo qori karo fraction waa qodobka koowaad muhiimka inuu loo qori karo as a fraction tusaale ahaan oo kale waxaan haystaa 1 divided by or the half baan haystaa tusaale ahaan oo kale halves half baan haystaa half waxaan qori karaa 0.5 marka 0.5 kaas waa micnaheedu waxaan qori karaa fraction 0.5 marka numberkaas waa number si sax ah u qaybsamo marka numberadaas 0.5 oo kale tusaale ahaan waxaan haystaa 3 loo qaybiyo 10 waa 0.3 waa kamid ah tusaale ahaan waxaan haystaa 10 loo qaybiyo 3 marka waxaan noqonaysaa 0.333 waxaan leeyahay 3.3333 marka numberadaas 3gaas ma dhammaan ma u soo noqonaya maanta oo dhan waxaa loo yaqaanaa numberadaas waxaa loo yaqaanaa rational numbers marka numberkan uu soo noqonaya 3gaas ma dhammaanayo numberadan kale oo 0.3ga ma hal number ku dhammaanayana kuwaas waxaa la dhahaa terminal numbers marka kuwan recurring numbers kaas iyagoo soo noqonaya magarasa maanta dhan ma dhammaanaya laakiin numberka soo noqonaya marka kuwaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa rational numbers taasoo soconaysa numberada fara badan marka numberadaas oo dhan waa rational numbers denominatorka 0 ma noqon karo hal wuu noqon karaa laakiin denominatorka hal waa noqon karaa waxaa noqon kartaa oo kale 7 loo qaybiyo hal laakiin waa rational numbers laakiin 7 loo qaybiyo 0 rational numbers ma kuwaas waa khalad 0 ma noqon karo denominatorka hooseeyo marnaba 0 ma noqon karo marka kuwaas waxaa la dhahaa rational marka qaybta 9aad haddaan u nimaadno waxaa jira irrational numbers irrational numbers waa numberadan irrationalka waxa weeye numberadaasi waa numberada aan loo qori karin fraction looma qori karo muhiimadda ugu weyn waxa weeye looma qori karo as a fraction fraction looma qori karo kuwa hore fraction baa loo qori karo laakiin kuwan looma qori karo fraction looma qori karo fraction looma qori karo waa numberadaas waxaa ka mid ah square root of 2 oo kale square root of 2 haddii square root la geliyo waxaa soo baxaya 1.4142 saasana isu soconaya marka numberkaas kale mana dhammaanayo mana soo noqonayo numberkan ma soo noqonayo sidii taasoo kale 3.3333 soo noqonayo
mana dhammaanayo waxa la dhahaa nambaradaas waa irrational numbers fraction looma qori karo nambaradaas marka waxaa kaloo kamid ah by baa kamid ah by haddii nambarkaas in loo magaranaysaa iyana waxa noqonaysaa 3.14 baa noo soo qaadanaa 3.14 kala markan uu sii soconayo kala uu sii soconaya dhamaad male marka nambaradaas waxa la dhahaa irrational numbers ka kuwaas saasi ku duwan yihiin rational number waxa fraction loo qori karaa denominator 0 ma noqon karo nambaradaas 0. haddii pointiga qaarkood hal number ku dhamaanaya laba number ku dhamaanaya waa 0.3 ka terminal numbers baa yiraahdaa kuwana recurring numbers baa yiraahdaa nambaradaas soo noqonayaan kale hal number baa soo noqon kara waxa noqda 3.333 ama number kala soo waxa soo qoran number badan laba number soo noqon kara number badan baa soo noqon kara waxa noqda 3.334334633 marka dhowr number soo noqon kara irrational numbers kana waxa weeye iyaga fraction loo qori karo oo fractional loo qori karo oo kana hada xaga fractional loo qori karo cannot be written as a fraction in fraction loo qori karo waxa kamid ah square root of 2 baa kamid ah by baa kamid ah nambaradaas oo dhan waxa la yiraahdaa irrational numbers hadaan u dhimaano qaybta tobnaad waxa jira qayb la yiraahdo imaginary number marka imaginary numbers wax kale ma aha nambarada ka soo qaad waxaan haysanaa square root of -4 kama naqaanin ma jiro -4 ama tirada minus kale square root keeda ma jirto lama yaqaan waxay tahay -4 square root ma jirto sida awgeed si loo xaliyo waxa lagu soo daray qaybaha numberska imaginary numbers ku square root marka la hadlayo square root of 1 waxa la mid tahay 1 marka square root of -1 lama yaqaan waxa ay tahay square root of -1 sida awgeed square root of 1 waxa la yiraahdaa waa I square root of 1 si loo xaliyo minuskaas marka hadda number 4 baan haysanaa number 4 maadaama haysano the square root of -4 waxaan u qori karnaa 4 times -1 marka minuskaas aan kala u soo qori karnaa square root of 4 hadaan kala qaadno oo lagu dhisay square root of -1 taasoo loo qori karnaa marka square root of 4 waxay la mid tahay 2 square root of -1 asan waxaan ku soo sheegnay waxay la mid tahay I waxaan noqonaysaa 4 oo lagu dhiftay aydan xaga ay la mid tahay -1 kaas la mid yahay waxaan noqonaysaa 2i noqonaysaa 2i noqonaysaa marka nambaradaas aydu la socoto waxa loo bixiyay the imaginary numbers marka tobankaas aan ku soo koobnaa number qaybaha nambarada types of numbers haddii aad doonayso inaad naga mid noqoto channelkayga fadlan subscribe saar commentigana ku soo dhigo wixii ra'yi aad qabtid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa salaamuna dhamaantiin